maalin wanaagsan saaxiibayaal meel walba oo dunida ka joogtaan hadda suuqi kala iibsiga ciyaartooyga wuxuu galay maalintii afraad hadda maanta oo khamiis ah maxaa suuq kala iibsiga ciyaartooyga ka cusub ayaan waqti yar ku qaadan doonaayo barnaamijkeena kan ee kooban hadda Philippe Coutinho arrinkiisa ayaa midka ugu weyn ee suuqa aadka lala xiriirinayo in uu Barcelona ku biirayo majaladaha Spain oo dhan waxay xaqiijiyeen oo waliba kuwa Madrid ka soo baxa ee inta badan loo xaqliyay in Madrid taageeraan ee marka ay ka mid tahay waxay dhamaantood wada sheegeen in Philippe Coutinho ay hubaal tahay inuu ku biirayo kooxda kubadda cagta ee Barcelona waliba yahood ayaa waxa iyagu soo warinayaan maanta oo khamiis Liverpool inay bilaabayso gorgortanka Barcelona ay kala galayaan ciyaartooyga Coutinho waxa la isku raacay Liverpool inay ka soo dabacday sidii hore oo ay markaan raali ka tahay Coutinho inuu kooxda ka tago hadda Coutinho kuma cusba Spain hore ayuu ugu soo ciyaaray kooxda Espanyol waliba taariikhdiisa xusuus ee Barcelona mar buu ka hor yimid darbiga Catalan markaas oo Barcelona iyo Espanyol ay ciyaarayeen xilliga uu Coutinho ka mid ahaa kooxda Espanyol Barca ayaana 4 gool iyo eber ku adkaatay kooxda Coutinho u ciyaarayay Espanyol marka arinka Coutinho wax badan ayaa soo taraya oo sheegaya ninka inuu xagga iyo Barcelona qabanayo waliba Lemar ay wada hadallo la bilaabeen Liverpool si ciyaartooyga Coutinho marka ugu tago 90 milyan ay kaga soo bixiyaan ciyaartooyga Lemar oo u ciyaara kooxda kubadda cagta ee Monaco warar kale ayaa jira Madrid waxa la sheegayaa Real Madrid weeyaan in ay heshiis la gaartay goolhayihii kooxda kubadda cagta ee Bilbao Keba goolhayaha ka ayaa la sheegay in dokumentiyo la helay ay muujinayaan in labada taariikhba mid uu ku soo biiri karo ama Janaayo ku soo biiri karo ama xilli ciyaareedku markuu dhamaado ku soo biiri karo kooxda balse waxa la sheegayaa Madrid heshiis ay la gaartay ninka oo sidaan uu kala dooran karo haddii ninkan hadda kooxda lagu soo darayo iyo haddii kalaba Sanchezna waxay wararku sheegayaan in Manchester City ay ku dhowdahay in ay la wareegto Sanchez ayaa markii hore City waxay rabeen inay kaystaan xilli ciyaareedku markuu dhamaado balse dhaawaca Jesus ayaa ka dhigaya City in ay sanadkanba waliba bishan Janaayo isku dayaan inay soo qaataan Manchester United waxa ka cusub maanta Danny Rose ayaa la sheegay in Manchester ay xooga saarayso inay la wareegaan bishan Janaayo Mourinho ayaana ka codsaday maamulka kooxda in lacago 50 milyan loo gacan geliyo Spurs si looga soo qaado ninka kan ee la yiraahdo Danny Rose oo ku fiican dambeedka bidix Coutinho waxa la sheegay 2008 inuu ku dhawaa inuu ku biro Real Madrid oo Real ay soo martay fursad ay 2 milyan ku qaadan lahayd ninka hadda lacagaha faraha badan lagu doonayo balse xilliga Liverpool ninka uu ciyaara Coutinho Real Madrid waxay ka doorbiday nin yiraahdo Alipio oo ninka loo reer Brazil ahaa oo Coutinho iyaga iska lumiyay xilliga ka dhanka kale Michael Sarri isna waxay wararku sheegayaan in lagu garaaci doono Man City Liverpool iyo Barcelona oo Sarri wuxuu ku dhow yahay inuu ku biiro kooxda kubadda cagta ee Paris Saint-Germain Chelsea Vidal ay wali aad u raadinayaan oo lacag 33 milyan bay u soo dhigeen laakiin Michan waxay doonaysaa in la bixiyo 53 milyan weelkoodna waxay sheegayaan wararku inuu Milan doonayo inuu bishanba ku biiro halka Locatelli laga yaabo in uu Milan isaga taga isna gabi ahaanba oo Turin ayaa raadinaysa waxay hayeen kuwa ka waxyaabi ugu weynaa ciyaaraha maanta suuqa iyadoo wax badan ay isbedeli karaan saacadaha soo aadan hadda waan idin soo gudbin doonaa saaxiibayaal anigu kharbaan idin la socodsiinaya maanta waxyaabaha ugu weyn suuqa waqtigan ka jira